هيكل محمد موسى وأدير مصور كيشي أو عن كل كاعي ماريا أبشر محمد حسن أو مهر كيد رؤيا يقول قران أو ذهب بنت امرأة أو سنغافوري أعبها أو وكيشي إن كل كاعي هيكل محمد موسى هيكل أدير كوكيل نكاح مهر كاس موضوع بشر وأنا دقيقة يري أو مركزي حفلة هيدب إنه قرد عضي يضو مركز لنا هاي وتكون سنتين حفلة أيام قد قل دونا مركز وحن كل أفراد دونا أيضا قرآن الكريم كقول كأبه وحنا إنه دا فريا معلن حسين إيدو حسن مركز الناس محنوس استاجي أنك واسكنبرة يا ورد مركز باشا وحنو النهاي dir irid baanu nahay dirna waa ka nahay waxaanu ka nahay niman ila isaaq reesheed isaaq habar awal baanu ka nahay ciise musaanu ka nahay beeshana ma soo kala harin maanta udbaheedii dhigaheeda maca suldaankii beesha ayaanu hogaaminaya cuqaashii dhalinyaradii aqoon-yahankii giddi meeshaan ku dhammahay gabadhaasaan mataqaanaa si aan u karaamayno iyo reerkan aanu gabadha ka doonayno waxba lamaanaan soo harin meeshaan isugu nimid sidaa awgeed baan waxaan uga codsanaynaa beesha martida loo yahay inantu ka dhalatay wiilka waxaa la yidhaahdaa haykal maxamed muuse gabadha la yidhaahdo maariya abshir maxamed ayaanu idinka fadhin aadna siisaan nagu caaqibaysaan noo guurisaan insha allahu tacaala warkaan intaasa kusoo gabagabeeyey waxaan ku darsaa anaga gabdhaha markii nagala guursado dadku waa kala abgaalka waa kala nuucnuuc markii gabadhu ninka ay miis qabtaan ka soo tagto ay guriga reerkeeda timaado gemberaa u tuurnaa anaga gemberkaas ku fadhiisaa dhahnaa gabarka gabadha hadday buuxiso naacido malida gurigaaga aad meel dhaqanaa ka timidaan dhahnaa laakiin hadday gemberkii dhinac ka bannaanaado war yaa meeshaa fadhiiso dad haddaad ka maqan tahay iyaa ku soo doonan doonay aan dhahnaa gabadh waxaa rabnaa inay gemberka buuxisana waa rabnaa ya haddana haddaan kusii darsado dadka xaafada anaga gabdhaha ma aadno oo gabdhaha wax lagama doonto sida badan culumaan oo hormartay khayr allah siiye marka laakiin waxaa lagu qabaa walax oo la yidhaha aroos iyo wax la isugu kaalmo iyo habarteer iyo habareerteer iyo hadda hargeysa laga tuuro gabadhii arooska iyo wixii hataa laguma qabo warba iidaa noo dhaqaalaysnaato khayr allah siiye waana mahadsantihi الرحمن الرحيم waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka dadkiina halkan dhammaantiin fadhiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan idinka mahad celinaynaa xafladan quruxda badan ee aad nagu soo dhaweyseen noo siiseen alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waan idinka mahad celinaynaa waxaa la yidhi dad labada reer ee labada jaanibi dad hadda u kow tahay inaynu isu soo doonano maaha si fiican baan idiin naqaanaa idinkuna si fiican baan noo taqaanayna waxaanu nahayna horaa loo sheegay oo caaqilkii ayaa hore u sheegay laakiin inaan hadal badan idhaahdo umaanu istaagin inaan idin mahad celiyaan halkan u soo istaagin waxaan leeyahay zamankii asxaabta ayaa waxaa la yidhi ninbaa gabadh loo jiriyey oo gabadhii loo doonay gabadhii wuxuu yidhi gabadha intaydaan igu darin waxaan doonayaa gabadha horta inaan arko waad arki kartaa baa la yidhi oo gabadhii baa loo keeno waatan baa la yidhi gabadha lagugu daraya wuxuu yidhi noo faqdaaya labadayada labadoodii markay goornis waxay waxaan ku weydiinayaa ma waxaad doonaysaa inaynu isku aakhirasano oo adna aad duugto anna aan ku duugo kolba qofkeenii hormara mise waxaad doonaysaa 2 bilood ama 3 bilood kadib inaan isfurno markaasay tiraahday laba la isku misaala maaha waxaan doonayaa haddii ilaahay yiraahdo inaan ubad kala dhalo
oo haddaad iga horeysana aad aan ku duugo haddaan anigu aan kaa horeeyana adiga i dugto haddaba mid yeel buu yidhi sidaas siday ku dhici kartaan kuu sheegayaa mid yeel waxaad yeeshaa haddaad i aragto anigoo xanaaqsan anoo xanaaqsan haddaad i aragto ha iga daba xanaaqin anna haddaan arko adigoo xanaaqsan kaa daba xanaaqi maayo oo laba xanaaqsani dee isma daweyso waxaa imaanaya dhib baa imaanaya marka waxaan dhihi lahaa mid wiilka iyo gabadha waxaa la yidhi ninkii gabadh reer soo koriyey oo quruxda aad yaabto oo lagu soo juhdi la geliyey ninkii intuu yidhi hallaysiiyo nin ka geesisan ma jiraa la yidhi cidda gabadha dhashay gabadhay ku soo tiiriya tacabeeleen soo koriyeen cilmi bareen oo inta loo yimi nin u yimi yidhaahda gabadhiinaan idinka doonaynaa iyaguna siiyaa cid ka deeqsisani ma jirto waayo gabadh ay intaa kusoo tabcayeen soo koriyeen soo kabiyeen kusoo tabceen waxbareen ayaa nin inta u yimaada ayay siinayaan marka cid ka deeqsisani ma jirtaa la yidhi gabadhii lagu soo tabcay juhdigaa la geliyey ciddii bixisay waxaan leeyahay dardaaran yar baan u sheegayaa labadii jaanib wiilka iyo gabadha horta waa u ducaynaynaa waxaan leenahay kuwii isku waara allah idinka dhigo kuwa khayr qabo waxa halkan aan u fadhinaa waxa weeye khayr baynu u fadhinaa waxaynu u fadhinaa guri islaam aynu dhisaynaa meel la isugu yimaado meeshii u khayr badneed maadaama qoys islaameed la dhisayo waxaan leeyahay kuwii isku waara ubad khayr qaba allah kala siiyo allah ka dhigo waxaan wiilka ku leeyahay wiilow gabadha reer baadhalo kusoo tabcay oo soo koriyo soo kabiyey gabadha waa loo sabraa waxaan leeyahay u sabir gabadha iyana waxaan leeyahay gabadhana waxaan leeyahay sidaa si leeg baan leeyahay waxa weeyaan insha allah allah idinka dhigo kuwa isku waara allah idinka dhigo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أولا وحمد إسكال إلهي نقصه كل مية حفلة وروح بضانه إن نريد نوع عقد الشرع وافقسا وإلهي راضي وكيهي أن أريد نوع هدو إلهي لهذا بلشد ماشي الدكتور لن ما دام النكاح وقرعايو جمع أما اجتماعي وقرعايو دمان ووضع مرقاتي معناها مرقاتي تقولي وهل إيا اللبا إيا ما دام ضدكو أي بديهين وإنا أغاتين إنا دمانتين عقد كعتان كيسا المرقاتي كتهين قبدا وحال هذا ماريو أبشر محمد حسن ويلكنا وحال هذا هيكل محمد موسى ويلك هذا لما جوجو وحا وكيل walaalkiis aadam aa u wakiila sidaas ogaanaysiin gabadha aabe heeda aniga u wakiishay inaan caqad ka rido maharkeeduna waa 100 garaan oo dahab ah oo finti una ah nooca sinkabuurigana ah sidaas ogaanaysiin caqadka ku ridaynaa intaasba inaad marqaati ka ahaataan oo aad joogtaan maadaama dhalinyaro iyo duqowsho iyo akhyaar dhammaan ay meesha joogaan dad haddana dhammaan wada muslimiin ahoo ahlu taqwa ah aad wada tihiin dad waxaad tihiin u suuban inaad qof kastoo idinka midaba lagu qoro inay naqato marqaati sidaa darteeda marka dhammaantiina waxaad tihiin marqaatiyaalo sidaas ogaada caqadkana aniga ridi doono magaciiga la yiraahdo cabdikariin sheekh cabdullaahi maxamuud xasan caqadka ridi doono oo la ii wakiishay waana gudagalaynaa hadduu ilaahay yiraahdo الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه صلوات الله وأزكى تسليماته عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغل للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له به وجاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولدينها ولحسبها فاظفر بذات الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعلوه تكن في الأرض فتنة وفساد عريض. النكاح معين للدين ومهين للشيطان اللعين وحسن دون عدو الله حصين وسبب للتكثير الذي به مباهاة سيد المرسلين لسائر النبيين وهو سنة الأنبياء وفعل الأتقياء وشعائر الإسلام وجنة من الفحشاء وإذن وأدب من رب السماء يجعل البعيد قريبا والأجنبي نصيبا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المعبود الله المصطفى رسول الله وغير ما عمل به كتاب الله هو الهادي المفرق بين الحلال والحرام. أزوج موكلك وأنكح موكلك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. زوجت موكلك وأنكحت موكلك هيكل محمد موسى بنت موكلي ماريا أبشر محمد حسن بوكالة وليها إياي وبإذن وليها إياي ومهرها 100 جرام ذهب السنغافورية حالا في ذمة موكلك فلها المطالبة من موكلك متى شاءت قبلت له نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور أزوج موكلك وأنكح موكلك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. زوجت موكلك وأنكحت موكلك هيكل محمد موسى بنت موكلي مريم أبشر محمد حسن بوكالة وليها إياي وبإذن وليها إياي ومهرها 100 جرام ذهب السنغافورية حالا في ذمة موكلك فلها المطالبة من موكلك متى شاءت قبلت نكاحها له وتزويجها بالمهر المذكور هيكل محمد موسى وأذيك كسوة كي شيء أو محن كن نكاحي ماريا أبشر محمد حسن أو مهر كذا أو ياهي بقول قران أو ذهب بنت أناء أو سنغافوري هذا أو وكي شيء إن كن نكاحي هيكل محمد موسى هيكل أذيك كوكيل نكاحاس مهر كاس ما هو أقبل شيء وأنا أقبله نكاحاس مهركاس وهو أقبل وأنا أقبله نكاحاس مهركاس وهو أقبل نكاحاس مهركاس وأنا أقبل هيكل محمد موسى أو أديك كسوة كي شيء أو أن كن نكاحي ماريا أبشر محمد حسن أو أبه هذا أو كسوة كي شيء إن أن كن نكاحي هيكل مهر كذا أو بقول قران أو ذهب أو فينت أنا سنغافور أن كل زوجي يوم كل نكاحي هيكل مهركاس نكاحاس وهو أقبل شيء مهركاس نكاحاس وهو أقبل. بارك الله لك وبارك عليكم وجمع بينكم بالخير.
Nanti kamu harus terima.